qaybo ka mid ah xaafadaha Muqdisho waxaa ka dhacay banaanbaxyo dabaaldeg oo lagu soo dhaweynayo natiijada isbeddelka ka dhacay dalka. saacadan la joogo waxaan ku suganahay bartamaha magaalada Muqdisho oo qaybo ka mid ah ay ka socdo banaanbaxyo la xiriira natiijada ka soo baxday doorashada Soomaaliya. dadka halkan jooga oo wiil iyo waxay u dabaaldegayaan oo taageerayaan madaxweynaha cusub Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. farxadana lama qiyaasi karo waa sida u jeedaan waxaan lug ka soo bilaabnay xaafadda la yiraahdo Bakaara Isgooska Barrabax ilaa halkan bar afar waxa u soo weynayna damaashaadkaas oo ah ilaa madaxtooyo waagu ka barina waa socodona insha Allah Farmaajo hano waxaan ku sugnaa magaalada Muqdisho waxaan taageersanahay Farmaajo dawlad cusub in noo dheertay aaminsanahay dawladana guul ay u rajaynayaan bulshada Soomaaliyeed dhammaan meel walba joogaan waa salaamaya madaxweynaha sharafta leh aantan iyo tarabuunka orodka ugaga imina Farmaajona guul aan leeyahay guul aan leeyahay dalka Soomaaliyeed waxaan Ilaahay ka rajeeyay ninka aan rabay waxaan ku guuleystay waxaan ka baryaa inaan u dhinto calanka Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed inta aan noolahay waa u taagnahay waa u jiifaa waa kama jiifso kama hurdo iyo dadka daacadu iyo diinta ku jirtaan ka baryaa inay dhinac la noqdaan oo macnaha Ilaahay ku leeyahay oo la shaqeeyaan ay Farmaajo aan noolaado guul ayaan u rajaynaynaa waa nin muslina waa nin shacabka jecel waa nin militariga Soomaaliyeed xoog jecel waa nin dalkiisa daacad u ah ha noolaado anigu maanta u dhaxay gaalada maanta ay dhacday gaalada maanta ay ku xamri wala anigu wallahi suuq walaakima Farmaajo inuu ku guuleysay banooni ku dheelaa kooxda garawsha Farmaajo xilka qaadaan Farmaajo ha noolaado midnimada ana baayina madaxweynaha dalka Soomaaliya xaqda midana Cabdullaahi Maxamed Farmaajo madaxweyne ra'iisul wasaaraha Cusmaan حسن اسمه مدن جواري wuxuu ku mahadsan yahay soo sinaanta cadaaladda midnimada Soomaaliyeed ugu shaqeeyay dadka Soomaaliyeed soo mid jacayl Allah Farmaajo oo jecelna ciidamada oo doortay warahmatullaahi wabarakaatuh waxaan salaamayaa madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo shacabka Soomaaliyeed waxaan kaloo salaamayaa militariga dalka waxaan rajaynaynaa inuu noqdo kii cadaalad noogu shaqeeyo oo dalka iyo diinta iyo dadka u qabto inna wasugida iyo madaxweynaheena dalka Soomaaliyeed Maxamed Maxamuud Farmaajo Soomaaliya hay israacdo aan noolaato ونسي كنت ودكنا نبيع وسن نغنو وألف نغنو وألف نغنو